الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، maanta taariikhdu ay tahay 11 bishii Rabiicul Awwal 1441 hijrada Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam oo ku beegan 8 bishii 11 2019 tirsiga Faranjiga. waxaan insha Allah ta'ala masaajidkan barakaysan fi madinati Hargeysa aynu insha Allah ta'ala ku qaban doona jalasaad cilmi ah taasoo runtii daba socota ballanqaad hore iyo qadaaya dacwiya fi saaxa, qadaayaad dacwiya saaxada yaalla oo runtii u baahan cilaaj ay insha Allah ta'ala dawo noqon doontaa. ciwaanka loo dooray wa idha urifa sabab batala al-ajab. waxaan runtii aad ii dhibaya oo aanan jeclaysanaynin qadiyaddu inay halkaa gaadho, laakiin waxa sabab u ah ciddii gaadhsiisay ee halkaas inay hawshu gaadho sabab u noqday. waxaan in badan codsaday siyaabo kala duwan, majaalis kala duwan su'aalo laygu weydiiyey qadaayaad dacwadda ama saaxada dacawiga ee salafiga ah dhex taalla. mar walba su'aasha lay weydiiyey iyo madmuunkeeda iyo waqtiga loogu talagalay wixii ka munaasib ah ayaan ka tilmaamayay, laakiin waxa ka horeeyo ka badnaa turuq mutacadid ah inaan u marnay aniga iyo rag kale oo ahlul cilmi ah aanu u marray in qadaayaadkan saaxada dacawiga ee salafiga dhex yaalla in turuq cilmi ah oo mubaaxathaat cilmiya in lagu baxsiyo oo lagu soo afmeero. laakiin dadku maadaama aanay ogeyn marxaladahaas qarsoon ee la soo maray oo laga yaabo kelmado kooban oo waqtiyo munaasabado kala duwan oo sababtoodu ay tahay inta badan su'aalo طلابul cilmiga ka yimid oo lagaga jawaabayay aanay suuragal ahayn in la bastiyo, ayaynu insha Allah ta'ala maanta bastin doona. waxaan in badan tamaniyi jiray in qadaayaadkani ay bisaadka cilmiga iyo maa'idada cilmiga iyo si hoose oo طلابul cilmiga iyo caamadu toonna aanay ku fitnoobin in looga warramo oo la iska qanciyo. turuqaad iyo aad u fara badanna way soo martay, laakiin waxay gaadhay baab masduud ah oo ay waajib tahay markaa iyadoo loo danaynayo طلابul cilmiga in wax badan la kashfiyo. jalasaadka kala duwan ee su'aalaha laygu weydiinayay oo tii ugu dambeysay ahayd Masjidul Huda fi madinati Hargeysa wiigii hore jimcihii ka horeeyay laygu weydiiyey. waxaan ku dadaalayay usluubka nabawiga ah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ee ma baalu aqwaamin yafcaluuna kada wa kada wa yaquluuna kada wa kada. waxaan ku dadaalayay inaan ka fogaado inaan magacyo rag mashaayikha oo zamaala iyo
kulamo kale oo fara badan oo walaaltinimo ah aan isugu nimid inaan magacyadooda sheego taxaashi baan ku sameynayay laba arrimood baan igu kalifayay inaan usluubka nabawiga ah isticmaalo iyadoo ka kaleba uu bannaan yahay sida nabiguba sallallahu alayhi wasallam abu sanaabil saxaabigii la oran jiray khatayiisi markii loo sheegay uu yiri kadaba abu sanaabil laakiin laba arrimood baan xeerinayay ugu horreyn waxaan masaaxo uga tagayay ama khatar jacaan u sameynayay sida usluubka daarijka ayba uu yiraahdo in walaaltinimadu aanay cunfi isu bedelin oo mawadadu ay tastamir oo qofka la sheegayo ama khatiisa la baraarujinaya inuu waxa weeyaan qaato al-labiib yafhamu bil ishaara oo ka soo noqdo ama waxa loogu yeerayo oo aqbalo sababka labaad ee uu kalifay waxay ahayd dadka saamiciinta ah ee maqlaya khaasatan maadaama ay masaajida tahay in la ixtiraamo oo iyagu maadaama aanay masaa'ishan garanaynin in ay u fahmaan magacyada la sheegayo ama dadka magacyadooda la sheegayo wadaadda is haysta oo waxa weeye is eryanaya inay u fahmaan taasna ay ka dhalato suuradii cilmiga iyo ehelkiisa in la tashwiihiyo laakiin sida aynu ogaan doonno maadaama walaalkay sheekh cabdullaahi xasan xaashi barbaraawi uu xalay أكثر من مرة ومقعيك كشاقي مساجد وكلمة كشيدين أي عد كيدنا عن حيو تدكي فديين أي فديين إسلام كان ويساقوا بناك وصوب حي حقصة بيقول نقول دونتا إن المقعية فربضان وأن تحاشي إسلها كسمي inaan bartooda ugu tago magacyo badan iyo ashxaas fara badan oo aan ka fogeynayay inay magacoodu ama qadaayaadkan iyo xadadkan aan ka warrami doono calaaqa leh aan ka fogeeyo maadaama uu sabab u noqday sheekh cabdalle barbaraawi waxay noqonaysaa caawa maanta iyo majaalistan soo socda in cid kasta oo calaaqa leh axdaadtan iyo qadaayaadkan iyo masaa'ishan aan ka warrami doono inaan mid walba magaciisa aan sheego sidaa daraaddeed sheekh cabdullaahi barbaraawi uu ku noqdo ashama akhin fii xisbihi walaal kii ugu shumiga badnaa ee xisbigiisa iyo jamaacadiisa ficilkiisa iyo facaylkiisu ay kula soo noqdeen dib ay kula soo noqdeen ha qaato wisaamka sheekh cabdullaahi barbaraawi majaalistan waxaa ciwaan looga dhigay idaa curifa asababu baطala alcajab في كتاب المرتجل لابن خشاب صفحة بقولي شنيا فرتنات كتابك وكوش الرحية كتابك جمل كي عبد القاهر الجرجاني وعلماء قرني لحاد نوليده وحاوت المامية هذا الكنوع عاسي إنه مثل نقضي ومركا وكور رمي تعجبك يا اشتقاقات كيسا يا معاني ديسا أي ابن خشاب وحيري ولهذا قال القائل وهو قول مستفيض في الناس إذا عرف السبب بطل العجب سداد رادد بويري أيا قائلك أمددك قاركود هذا الكيدادان أن نقضي شيء مستفيض أو سيد ديسان ددك دحدوده أو إذا عرف السبب بطل العجب مرك هذا الكاوحد كدري ميسا إنay tahay kelmad qadiima oo la isticmaali jiray oo مثل noqotay marka مثلkaas oo macnihiisu yahay إذا عرف واطلع على حقيقة الأمر فإن الإشكال يزول فلا غرابة بعد ذلك هذه شيء لقرته وحقيقتي la isdul taago ishkaalka iyo isweydiintu iyo kuwareerku وسولا سادرادت غرابة بعد ذلك سببت مركا لو ogaado غرابة iyo غريب سمي مادتون ciwaanka maxaan u doortay ama sababta loo ogaaday ajabka zuulinaysa maxayt waxaan tilmaamay
in waqtiyaadii aad u farabadan oo kala duwan oo qarsoon in jamaacadan sida gaarka u sheegata salafiyada ama ixtikaarka ku samaysay ee yiraahdo salafiyiin baanu nahay ee dadka kalena u diida sida iman doonta oo iyaga uu isku gaar yeela ama ashkhas muayyanin ku gaar yeela cidda kalena u diiday ka nafiya qolada noocaasa oo in badan iyo siyaabo kala duwan oo qarsoon aniga iyo qeyrkayba aan uga dalbanay masaa'il muayyana oo ay sheeganayaan dadka saaxada ku nooli iyaga wixii ka soo haray inay tariiqii hadyigii nabiga sallallahu alayhi wa alihi wasallam iyo saxaabada ay garab mareen iyaga una ay yihiin cidda kaliya ku taagan waxyaabay markaa ku haystaan cid ka badbaaday ma jirto magacyada saaxada dacwiga saaxada jooga haday tahay magacyada ay sheegaan ama itixaad ku sheegaan ama i'tisaam ama tabliiq jamaacatu tabliiq ama ikhwaanka iyo afruuciisa kala duwan noocay doontaba ha noqotee wixii iyaga ka soo hara waxa ay ku tageen inay yihiin munxarifiin inay yihiin oo tariiqii nabi muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ay ka bayreen arka noocaas marka shayba gundhig u ah shayga gundhiga u ahi waa shay inshaa jamaacaat dacawiya ama xukunka ay yeelanayso jamaacaat dacawiya in la asaaso waxa weeyaan magaca ay u bixiyeen iyaguna ay yiraahdeen waa taxazub waa tafarruq ila ma hunalika adiladii tilmaamaysayna ay u daliishadeen waxyaabo kale ay raaciyaan way jiraan laakiin sidaynu arki doono qadiyada ugu asalka u ah ee inta badan ay ku celceliyaan sidaynu arki doono qaarkood ay yiraahdeen sida jamaacatul i'tisaam wax kasta oo masaa'il cilmi oo kale oo dhan haday ka tagaan oo waliba siday ku celceliyaan ay yiraahdaan ha toobad keenaan ay sidii ay doonayaan u toobad keenaan laakiin haykal dacawi oo jamaaciya uu dhisan yahay ay yiraahdeen waxa weeyaan anagu ma daynayno ama waxaanu i'tiqaadsanaanayna inay wali baaqi ku yihiin dalaalaad iyo inxiraaf haddaba masaladaasi oo ah masalada jamaacaad dacawiya iyo asaaskeeda insha Allah ta'ala sida inoo iman doonta in badan ayaa lagala hadlay iyada iyo masaa'il kale hayeeshee markasta cilal iyo tacallulaat iyo taharrub ayay kaga jawaabayeen waxa ugu dambeeyay oo runtii majaalistan maanta aynu bilownay sababay jumcihii hore ama laylatul jumca almaadiya oo bisha rabiicul awwal ay afar ahayd 1441 waafaqsanayd kowdii bishii 11aad 2019 ee muxaadaraan ka galay masaajidka Masjidul Huda magaalada Hargeysa ku yaala su'aalihii la igu weydiiyay ay kamid ahayd maxaa ku jaban in jamaaca dacawiya la asaaso waxaan tilmaamay in suura aan dhisay oo suurada noocaasa magacii la doonaba ha loo bixiye in ay bannaan tahay sharcan wax diidayaana inaanay jirin su'aasha waxa la weydiiyay maxaa ku jaban wax ku jaban iyo inaanay wax diidayo sharcan ogoli inaanay jirin taana waxa laga fahmayaa cidda cagsiga qabta in daliil looga baahanayo in cidda cagsiga qabta in daliil looga baahanayo maadaama ay dadkii ku tabdiicinayaan tabdiicuna uu xukun sharci yahay asalkana qofka daahirkiisu istiqaamo yahay ay tahay inuu khayr iyo sunna uu baaqi ku yahay cidda ka raraysa ayaa adilla looga baahan yahay adillada ay sheegaan inaan cadayn doono adilla ku filan ama maqaamka daliil u ah ma aha habeenka waxaan u qabtay marka week gudahood inay kaga soo jawaabaan inay week gudihii ay kaga soo jawaabaan oo ay ogolaadaan munaadarada iyo tariiqa sharciga ah waxyaabo badan oo sharcan ay ku cadaadaan wadada inay soo maraan waxaan si gaar ah u ishaaray
sheekh cabdalla albarbaraawi oo markaa aanan magaciisa sheegin laakiin maqsuudkaygu isaga ahaa sababtoo hadalkaygu wuxuu daba socday ama qayb ka mid ay ku saabsanayd wiiga ka horeeyay kelmad uu ka jeediyay sida aan filaya inay wajaale ahayd maqtaceediina aan hayo kaas ayay muwajjah ku ahayd waxyaabihii maqtaciisa ku jiray oo aan adilla ku jirin wax daliila aanu sheegin aan ka ahayn sharciga waxa ku soo arooray jamaaca ee jamaacaad kuma soo aroorin taana jawaabteedii halkaas ayaan iyadana ku ishaaray haddaba maqtacaasi markuu soo baxay oo aan ahayn cinwaankiisu muxaadaro mustaqila ee ahayd su'aal muxaadaro saacad dhow socotay juz ka mida ama ku soo aroortay ayaan kaga jawaabayay maqtacii markuu intishaaray talabkii aan dalbaday qolada aan sheegayo ee hore aan u tilmaamay ee salafiyada gaar u goosatay ama isku koobtay waxay mareen maqtacaasi ay uga jawaabaan ama u celiyaan waxay mareen dhowr maslak bay mareen ilaa 3 maslak ayay mareen maslaga koowaad iyo ka labaad waxa maray fasaqadooda iyo saqatadooda suuqadooda aan qiimo iyo wasni cilmi lahayn mushkiladda jirtaana waxa weeye kelmadda wadaad la yiraahdo mustalax sharciya ma aha lafdi sharciya ma aha lafdiga sharciga ahi ee dadka lagu xukumaa ee la siiyaa ee xukunno ka dhasha waa muslim munaafiq faasiq dhaalim kaafir iyo waxyaabaha la midka marka mustalaxan wadaadnimada waxa ku soo dhuuntay qaar sharcan magacay qaadan lahaayeen oo ahaa faasiq inuu yahay marka laba maslag waxa maray fasaqada qowmka iyo jahalada iyo saqatada suuqada iyagu moodaya in kubad lagu ciyaarayo meesha oo laba fariiq oo kubadooda ciyaaraya la kala taageerayo ama la kala tashjiicinayo labada maslag ay mareen maslaga koowaad waa ashataa'im wasibab maslagaasina waa maslag in badanoo talabada ay gacanta qoladaasi ku hayaan maslag u ah qofka iyaga ka soo horjeeda masaa'il ku khilaafay inay caayaan ama aflagaadeeyaan waa maslag lagu yaqaano waxayna waliba la dheer yihiin jamaacaadka kale ee dacawiga ah waa laga yaabaa qolo walba inay ku jiraan qaar fasaqa oo afxun oo cidda ka hor timaada cayda way ku jiraan laakiin iyagu aad iyo aad ayay ula dheer yihiin jamaacaadka kale dacawiga ah taasina waxay tusaysaa fasaadka tarbiyada iyo qaabka loo tarbiyadeeyay inuu faasid yahay صحيحين كما حكوا سجن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه النبي يقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر marka fisqiga halkaas laga qaadanaya oo qofka muslimka in ayda arrin banaan ma aha waxay kala mareen oo kamida masaaligta qoladaas ay mareen ama labada maslak soo hoos galaysa al-igraq fi qadaaya la alaqata laha bil mawdu' qadaayat inay isku mashquuliyaan qadiyada munaadarada laga dalbaday aan calaaqaba la lahaynba sidayna yiraahdaan i'tisaam ma matalo i'tisaam ma hadli karo wa arday kamida ardayda Sheikh Abdul Karim naam wa ku faanaya Sheikh Abdul Karim Hassan Xoosh inuu sheekhaygii ahaa xuquuq farabadan uu leeyahay xaqaasoo ah xaqu التعليم inuu cilmi baray oo aan cilmi ka qaatay laakiin taa macnaheedu ma aha cilmiga uu barayna ma keenayo inaan adoon u noqdo bal cilmiga aan ka qaatay baa wuxuu barayaa inuu cilmigu yahay aanu Sheikh Abdul Karim hagin marka arday buu ahaa sharaf baaniga ay tahay waxba wax laale wax yeelayso ma jirto Abdullah ibn Mas'ud sida Razin uu warinayo
أثر كعلماء قاركودنا أي انقطاع كشيغان وحولي عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة كيدي كمدك عيد كديانيا هكديدو كوي دنتي يدو خير لوغو مرخاتي كعيا دنتي وايا كانو لفتنة آمن كماها شيخاغو فتنة آمن كماها يينو فتنوبو آمن كماها إذا عد الراعية وحوي وحق هبل بو أرضي وها هبل بو وحكا قاعتي إن أن لقى قادنين هذا الكاسي وشيء أهل العلم ويقانان لكن كلام كالسوق هذا يفسقدوا أركوا خلاف سيئة ابن القيم رحمه الله تعالى استقوا تلماما يا شيخ أبو إسماعيل الهروي الأنصاري شيخ كتاب كمنازل السائرين له أيوح عبر عبارات يا قيمة بضن إن حق عد والبكوين هي وشيخي وحكوا باري هدي وقفوا إن حق كوين هي استوى حقيسي لا إله إلا الله تعدي عن لقو سمينين هذا الكاقيمة بضن ولايه ابن القيم مدارج السالكين كوحلايه هي شيخ الإسلام حبيب إلينا ولكن الحق أحب إلينا منه وكل من عدا المعصوم صلى الله عليه وسلم فمأخوذ من قوله ومتروك ونحن نحمل كلامه على أحسن محامله وحليه شيخ الإسلام ووجه أبو إسماعيل الهروي ونتشعل لهي لما نتشعل لهي وشيخا نتشعل لهي لكن حقا نكسي تشعل لهي حد كستو معصوم كنبي محمد كستو هدينا هذا الكيس واللقاته وانا لقيتها إذا وحن لها الشيخ عبد الكريم حسن حوش والشيخ يجي وانا تشعل هاي خير يا وناقنا وانوهيا لكن وحي علمك ونبري ونتصي إنه شيخ كوجفي كما راعينا وانا احترامينا وحكم إذا مسالك تاي مرين فسقدوا الرمي بالجهل إن شخصي طلبضي مناظرة يجو أن لا فريسا يجو أن أرضي النقل يجو أن إيجين وحكو هذليو إن إسكيل أهدام بكل سهولة وحبا قرن ماي تاسنوا مسلك كم إذا مسالك يهود مرتو قالوا أن أنا رنتي احترامي هل كان يقارن يقضيدو هل كان يقارن يجو يصابوا هايين وحلا يصدح وصفي أو يهود أي لقارتهاي أي دقن كود شبهي شيخ الإسلام رحمه الله وحوي هذا والمشبه بهم يخشى عليه من الهلاك قفك دقن كودا وحكم إذا يهود لي مادة نصارى وحلو بقى يا هلاك ولهذا خطورة إلى هاي يهودي نصارى ليسوا كيسيو iyo inay khaasada xitaa ay soo tasarrubayso dhaqankooda wax kamida ahmiyada arrinkaas uu leeyahay waxa uu daliil in maalin walba 17 jeer aynu ku celcelino ihdina as-sirata al-mustaqim sirata alladhina an'amta alayhim ghayr al-maghdubi alayhim wala ad-dallin masaaligta saddexda ah waxa kamida maslagan aynu sheegayno ama dhaqankan aynu sheegayno oo ah qofku markuu ku waafaqsan yahay inaad kor u qaado oo alqaab aanu istaahilin xitaa aad siiso marka uu ku khilaafana wixii uu xaq u lahaa aad ka qaado oo qaar baad waxaad moodaysaa kelmadda sheekh la yiraahdo in shay qofka lagu karaameeyo ay tahay oo marka la cadhaysan yahay qofka loo cadhaysan yahayna laga qaado marka laga raalida yahayna la huwiyo حديث البخاري صحيح سكسو وريه حديث أنس قصة عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه مركي إسلامي والنبي صلى الله عليه وسلم يمد سؤاله ويديي سؤاله النبي وجوابي وإسلامي مركو إسلامي اليهود يدق كيدو قرنيا وحاولي يا رسول الله إن اليهود قوم بهت قالوا اليهود ليادا وقالوا ضفرات يبين أبور بدن إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوني عندك هدي رسولك الله أي أوجادان إسلام كي أي أوجادان أنت آذن يويدين أنا قميش أن كتشوجو
ويقول بين أبو رنيا وحوليه عبد الله رضي الله تعالى عنه فجاءت اليهود ودخل عبد الله البيت يهودي ويتمد عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه قرق كدونتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي رجل فيكم عبد الله بن سلام عبد الله بن سلام بوسكيبو يدكتشوغا فقالوا أعلمنا وابن أعلمنا وأخيرنا وابن أخيرنا وأنك نوغو علم بدن آبهين وأنك نوغو علم بدن وحد عليك نوغو علم بدنا وأنك نوغو خير كبدن وحنا عليك نوغو خير كبدنا الكاسي مريين أما أنت كيات كوسر رئيسي هويين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرأيتم إن أسلم عبد الله وحد كورنتان هديو عبد الله إسلامه بل كورما كذب وحين أعاده الله من ذلك إلى هيها كما قال لي أرنكا كذب عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وصبحي وحانو قري إنه رسولك صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورميي دينة إسلام كانوا قاتي فقالوا شرنا وابن شرنا ونفس المجلس وكان نوغو شرك بدن وحنا دليكي نوغو شرك بدنا إذن قفكو مركا وكوافقسي هينا إناد مقام سرقارسيسو مركا آنو كوافقسانينا أما وكو خلافنا إناد وحيو حق لها كقادو ومسلك يدقن أيهود ليضحي قفك شبهانا وحو شبه يهودي بشبهي لبدا مسلك كلا أما لبدا دقن كلا مجالس كلا أيام تبديك هنا قضيتنا وحي حسوسيسا markii aan jaamacada dhiganaynay jaamacada islaamiya ayaa waxa dhacday qadiyadii Sheikh Abdul Hasan al-Ma'ribi sheikh caanka muhaddithka reer Yaman ee magaalada Ma'rib degan ee reer Yaman aad iyo aad u anfacay cilmigiisu aad iyo aad ugu sareeyo asalkiisu sem Masri ah sheikhaas iyo waxa isku dhacay sheekhan kale Sheikh Yahya al-Hajuri markaskii Sheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i markaskiisii u daba maray fadhiyay iyo dhinaca kale xagga Sacuudiga Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali kadibna waa lagu buuqay Abu al-Hasan waxa lagu buuqay masaa'il ayuu ku khilaafay markii lagu buuqay bariga hore intaanu masaa'isha ku khilaafinna علماء وين تياركن أيا وحي أماني جرين صغير عادي أمانتني الآن ويتعالى يكو أماني جرين وحي كو أمانيان إنه أقولية إنه علامية إنه نابغية إنت أنا هذا بالله يسكن عين بوح نووي من المدينة المنورة أي زيارة كويمد وأن حصوصتا أرضيدا ولا أروريني شيخي علامها بايمد كلام بوعاوة قبرية وحنوي من درسي أنو فرينايا درسي الشيخ عبد المحسن العباد سنن أبي داود كي أيون نووي مد وحلو دبيا عيسي غير طبيعية وزير باد مودس مالنتينا أرضيدا ولا أوروريني سي أي شيخ مجلس كيس وحاضران سنة كيسي مركو صوريجي مركيو خلافي وجاهل حما ما قرانيو وإلى ما هنالك مركا وأسلوب متكرر وآن عصبين أي سقنا أي مرين والتوغل في التعصب تعصب كي لقوا يقاني أراد مشايخ ذو أي وحوي يتعصبين أي كقابلين إيين قدحيا الناصحين أريك مسلقة توغل للمشايخنا سيدا إنو إيمان دونتا إن شاء الله تعالى وشيء أهل العلم قديما حركات كان إسلامية إنت أرك بأنا إيمان با تحزب كي كديك تشيرين وكقولة نيمة كاي سمايا أراد يا مسائش يا أشخاص إن الله تعصبه أو يجا ولا يبرا لغو حرام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وحوليه ومن تعصب علماء كورميا يتعصب كالله تعصب خطورات إلى هاي ومن تعصب لواحد بعينه من الأئمة دون الباقين
فهو بمنزلة من تعصب لواحد بعينه من الصحابة دون الباقين، كالرافضي الذي يتعصب لعلي دون الخلفاء الثلاثة وجمهور الصحابة، وكالخارجي الذي يقدح في عثمان وعلي رضي الله عنهما. فهذه طرق أهل البدع والأهواء الذين ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أنهم مذمومون خارجون عن الشريعة والمنهاج الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن تعصب لواحد من الأئمة بعينه ففيه شبه من هؤلاء، سواء تعصب لمالك أو الشافعي أو أبي حنيفة وأحمد وغيرهم. ثم غاية المتعصب لواحد منهم أن يكون جاهلا بقدره في العلم والدين وبقدر الآخرين، فيكون جاهلا ظالما، والله يأمر بالعدل والعلم وينهى عن الجهل والظلم. قال الله تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، إلى آخر السورة. هذا القيمة بدن خلاصة waxay tahay maadaama hadalkayga uu muwajjah ku yahay طلاب العلم in badan ma fasiri doono ilaa wixii la budda minhu mooyaane. maqsuudka Sheekh al-Islam Ibn Taymiyyah waxa uu tilmaamayaa cidda u tacasubta culimada barkood duuna bacdin u tacasuba inuu la mid yahay sidii kuwii saxaabada u kala tacasubi jiray ee raafidada iyo khawaarijta iyo waxa kale uu tilmaamay inay kuwa sidaa yeelayaan madmuumuun ay yihiin bil kitaabi was sunna wal ijmaa', inay madmuumuun ku yihiin, inay waliba khaarijiin ay yihiin an manhaji an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. waxa kale uu tilmaamay qofka sidaa sameynaya u tacasubaya sheekh ama caalim mid kalena difaacaya bidooni xujja inuu yahay mid naftiisana jaahilka ah, ciddan uu xukumaya ee wax ka sheegayana jaahilka ah qadarkooda, waxaanu noqonayaa jaahil iyo dhaalim. موطن كلام حكولها الشيخ رحمه الله: ولا يجوز لأحد أن يرجح قولا على قول بغير دليل، ولا يتعصب لقول على قول، ولا لقائل على قائل بغير حجة، بل من كان مقلدا لزم حل التقليد فلم يرجح ولم يزيف ولم يصوب ولم يخطئ، ومن كان عنده من العلم والبيان ما يقوله سمع ذلك منه فقبل ما تبين أنه حق، ورد ما تبين أنه باطل، ووقف ما لم يتبين فيه أحد الأمرين. وحلي يا شيخ ما بنانا إن لبا قول يا لبا قائل waxay sheeganayaan la kala rajaxo ama loo kala tacasuba illa bidaliil. kii laakiin isagu muqallida ee qofkan uu daba socdo mas'alada wuxuu ku dhisayo iyo adiladeeda ay istinbaadkeeda aan fahansanaynin, isagoo ma banaana inuu wax kala rajaxo, uma banaana inuu cid takhtiyeeyo iyo inuu qowl takhtiyeeyo. waa sida ay maanta u badan yihiin qolada ay tarbiyeedeen qoladani oo masaa'il aanay garanaynin كيف وقعت وكيف كانت هي استنباط كان ماشي وكل سيهي أي وحوي سجس عبطميان أما عيد أي قبصانيان وحكي شيئيان قال سنة وحوي ومخطئون وي. هذا الكاس وهذا العاديات ودار. إذا مجلس كاكوات وحين كسر جنانا دينا لبدا مسلك ولبا مسلك وأي قابلين warkii soo baxay ee aniga iga soo yeeray ee mas'ala muhaddad ah aanay mas'aladaas waxa weeyaan munaadaro haduu diyaar u yahay waliba aan ishaaray oo cid aan ishaaray ay tahay Sheekh Abdullah Barbaraawi markii uu soo baxay saddexdii maslag ee lagu qaabilay laba maslag waxa qaatay ama afartii maslag laba kamida waxa qaatay caamadooda ama fasaqadooda iyo sida ay u qaabileen ay uga jawaabeen gaar ahaan social media waxay ku qorayeen ama waxay aniga si shakhsiya oo personal iigu soo dirayeen. haddaan caamada u soo bandhigi lahaa waxay ii soo dirayeen message-yada ii soo dirayeen, waxaan ka baqayaa in ay caamadu ka cararaan cid kastoo cilmi sheegaysa ama masaajidada ay ka didaan. kuwa sheeganaya inay macaahid magaalada Hargeysa ku yaala ka baxeen oo sheeganaya kitaab iyo sunne iyo diin inay barteen, message-yada ay soo dirayeen ama ay meelaha ku qorayeen, haddii caamada loo soo bandhigo waxa laga yaabaa in ay waxa weeye diinta iyo طلاب العلمigaba inay ka shakiyaan. laakiin aniga wax xalaale waxay yeelaysaa ma jirto. mas'aladan muhaddadka ah
إن شاء الله تعالى كورمي دون مجالس صوت صعدة أي مهمة ديدو تاهي لكن عيدا يفلقاددو وعدي أي كصوب بحضي هل كوحين كنتو جنينا مجلس ككواد والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد